maxaa ka jira in shimbirkan gurigii lagu arko uu qof ku dhimanayo? muuqaalkiisu waa mid cabsi gelin kara qof kasta. waxa loo yaqaan guumeys waa shimbir cuna hilibka si ka duwan baalaleyda kale. waxa uu ku nool yahay inta badan dhulka hawdka ah, tuulooyinka iyo guryaha duugga ah oo goor hore laga guuray. sheekadiisa ayaan ku eegi doonaa warbixintan iyo bal inay xaqiiq tahay malaha laga aaminsan yahay shimbirkan. muuqaalkana sii faafi. guumeyska waa ugaarsada weyn marka la joogo kaynta iyo dhulka hawdka ah. waxa uu u duulaa si aan shanqar lahayn maadaama uu leeyahay baalal jilicsan. waxaana uu ugaarsadaa masaska, dooliga iyo xasharaadka yaryar. tani waxay ka dhigan tahay in uu guumeysku ugaarsado iyada oo aan la dareemin, halka shimbiraha kale ay shanqar sameeyaan marka ay buubayaan. guumeysku waa mid ka mid ah shimbiraha ugu caqliga badan baalaleyda buubta. waxa uu leeyahay dareen ka fog kaasoo u suurageliya in uu wax ugaarsado xataa habeenkii. marka aan ka hadlayno qaab samaysankiisa cajiibka ah, guumeysku waxa uu leeyahay madax jiha walba u wareegi kara isaga oo aan nuuxin jirka intiisa kale. waxa uu leeyahay indho aad u cabsi badan oo aadan aragtida u dhammaystiri karin haddii aad baqa badan tahay. ilaa 1 kiiloomitir ayuu awoodaa in uu wax ka arko marka uu joogo da'da qaangaarka. shimbirkan Soomaalidu waxay ka aaminsan tahay in uu yahay sharwade sida dhaqanka ah ee lagu barbaariyay ubadka Soomaaliyeed. laakiin waxaan u malayn jiray in aragtidaas Soomaalidu kaliya ay aaminsan tahay, balse waa mid soo xiriirtay Yurubta galbeed, Eeshiyada bari ilaa qaaradda madow ee Afrika. inta aan ka waramin sax ahaanshaha fikirkaas laga qabo guumeyska, bal aan isla eegno sida ay ka aaminsanaayeen Carabtii asalka ahayd. mandiqada Carabta waxa la yiraahdaa guumeysku waxa uu ahaa mid ay ka cabsadaan marka uu ku soo duldego guryahooda. Imaamu Maalik bin Anas waxa uu ka yiri oo uu ku fasiray sida laga aaminsanaa guumeyska: kaana idaa saqadat daali axadihim ra'ahaa naaciyatan lahu nafsuhu aw bacli ahlihi. waxa uu yiri waxay ahaan jirtay Carabtu midkood gurigooda marka uu ku soo dego guumeyska waxa uu arki jiray in guumeysku uu sheegayo in uu dhimanayo ama ehelkiisa kuwa guriga kula sugan uu qof ka dhimanayo. waa fikir faafay ilaa Mashriq iyo Maghrib, laga soo bilaabo Afrika, Eeshiya ilaa Yurub. waxa la aaminsan yahay in uu yahay calaamad muujinaysa geerida. meelaha qaarna waxa lagu daraa in uu sidoo kale tilmaamo faqriga iyo nasiib xumada. cidda uu soo dul joogsadana waxa ay Alle ka bariyaan habeenkaas in aysan faqriyin. waxa kale oo laga aaminsanaa mandiqada Carabta xilligii jaahiliyada in qofka marka uu dhinto ruuxdiisu ay guumeys isku bedelayso oo ay duulayso. sidaas darteedna marka uu guumeysku ku soo dego guriga waxay oran jireen ruuxdii dhimatay ayaana soo booqatay maantay. Sheekh Abuukar Xasan Maalin oo ka sheekeynayay guumeyska ayaa sidaas yiri. intaasi kadib waxa jirta dood kale oo dhahaysa guumeysku isaga geerida ma sababo ee waa uu soo dhugtaa, dabadeedna cidda ay ku dhufan doonto geerida ayuu u sii hormaraa. si kastaba ha ahaatee, shimbirka guumeyska ah waxa uu inta badan ku nool yahay dhulka hawdka ah, tuulooyinka iyo guryaha duugga ah ee goor hore laga guuray. waana mid ka mid ah baalaleyda ugu maqalka badan. dhagihiisu ma aha kuwa siman sida bani aadamka, taas ayaana u suurtagelin karta in uu heli karo jabaq kasta meesha sugan oo ay ka yeerto isla goortaasi. bal adigu aragtidaada hoos nagu la wadaag, muuqaalkana laag saar oo sii sheer gare.